maadaama ay ku beegan tahay Mustafa kusoo dhawo barnaamijka saaka iyo dunida 21 bishani February oo maalin quraac ay naga xigto maalinta afka hooyo isla markaana aad ka mid tahay xildhibaanayaasha akademiyada bal ka waran meelka ay maraysa akademiyada af goboleedka ee aga iyo waliba maalintani ahmiyada ay u leedahay shacbiga Soomaaliyeed. بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waa aad iyo aad baad mahadsantihiin teamkiina barnaamijka diyaarinaya marka xiga saad u tilmaantay waxa inagu soo aadan maalinta caalamiga ee afka hooyo maalinta caalamiga ee afka hooyo waa 21 Febraayo ee sanad kasta ayaa waxa loo asteeyay inay noqoto maalinta caalamiga ee afka hooyo asteynta iyo calaamadeynta waxa iska lahayd qaramada midoobay 20 sano ka hor 1999 ujeedada ugu weyn ee loo asteeyay ee loogu dooray in maalintaasi 21 Febraayo loogu magac daray inay noqoto maalinta caalamiga afka hooyo ujeedada looga gol leeyahay waxa weeyaan in la muujiyo qiimaha uu u leeyahay afka hooyo dhammaan dadka ku hadla gaar ahaan ubadka soo koraya iyo ardayda wax baranaysa waayo adduunyada markaynu fiirino adduunyada luqado badan baa laga hadlaa laakiin waxa awoodi badnayd yeeshay luqadaha waaweyn ee dadka tirada badan leh ay ku hadlaan sida Ingiriisiga, Faransiiska iyo luqadaha la midka taasi marka waxay keentay in luqadihii tira ahaan ka yaraa dadkii inay ka sii jeestaan in xooga la saaro luqadaha waaweyn marka halka waxa ka baxaysa kaalintii in isdhinto marka waxa loo arkay qaramada midoobay ay u aragtay waa dareen is soo tariyay waa muddo soo socday laakiin ugu dambeyn 99kii go'aankaas la isla qaatay in la muujiyo la isku baraarujiyo kaalinta afka hooyo uu u leeyahay nolosha kaalinta afka hooyo uu leeyahay waxbarashada sidii loo xoojin lahaa adeegsiga afka hooyo ummad walba afkeeda hooyo dabcan sidii loo adeegsigaas loo tayeyn lahaa sidii dadka loogu wacyigelin lahaa loogu baraarujin lahaa ayaa maalintan loo asteeyay hadda sanadkan waa sanadkii 20aad ayay ku aadisan tahay marka iyadoo akademiya goboleedka af Soomaaligu arinta ka duulaysa waxay ka gashaa hawl sanad walbaba inay abaabul sidii dadka Soomaalida ama geeska Afrika wadamada magaalooyinka kala duwan ku nool ama Soomaalida qurbaha joogtaba ha noqotee sidii looga abaabuli lahaa xaflado iyo kulamo iyo barnaamijyo kala duwan ujeedada ugu weyn ay tahay in lagu wacyigeliyo lagu baraarujiyo qiimaha afkooda hooyo oo af Soomaaliga uu u leeyahay marka qaybtaas ay ka tahay akademiya goboleedka af Soomaaliguna waayahay akademiya goboleedka afka Soomaaliga waxaad xustay inay dhiirigelinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo waliba xoojintiisa inay ahmiyada koowaad ay u tahay waxaad kala xustay in maxay tahay 22ka bishan ay ku beegan tahay loo asteeyay maadaama ay hareeyeen afafkii kale wadamada tirada badan ama awood leh sida maxay tahay wadamada Ingiriiska ku hadla Faransiiska ay ka awood bateen wadamada kale afafkooda Soomaaliya dabcan waxay ka mid tahay wadamada haatan luqadii ka sii tagaya ama afkooda hooyo ka sii tagaya Soomaali badan ayaa qurbaha u baxday oo maxay ahaatay isticmaala luqadii caruur badan xagga ku dhashay oo luqado kale isticmaalaya dadka wadan gudihiisa jooga naftigooda manhajida waxbarashada luqado kala lagu dhigaa Carabi English ayaa inta badan ay tahay sidoo kale dadku waxay aad u xiiseynayaan umaleysay luqadda Soomaaliga ahmiyad u leeyahay maadaama iskooladii iyo jaamacadii lagu dhigeen inay ahmiyad u leeyahay luqadda Soomaaliga ama afka hooyo u lahayd arintaasi miyay kula muuqan inaa qayb ka nahay dadka ay ku milmeen luqadaha kale horta waxa uu tilmaantay way jirtaa luqaduhu marka adduunyadu isku sii furanto luqadaha dadku ay adeegsanayaan si ay isu soo dhaxgalayaan oo marka halkaas ma kuma fikiri karno mana dhihi karno luqadaha ajnabiga waa inayna soo dhaxgelin ama ma adeegsanayno ama kuma hadlayno ama waxba kuma falayno ma dhihi karno oo hadda studio marka warka ka sii deynaysan qaybo kamid ah waxaad ka soo tarjuntaan luqada kale marka baahidu way jirtaa laakiin ta laga hadlaya la rabo in la muujiyo waxa weeyaan luqada kale to meelaha luqada ajnabiga ah luqada meelaha looga baahan yahay in lagu adeegsado ceeb ma aha laakiin in afkii hooyo laga tago ayaa ceeb ah
afkii hooyo isna waa inuu kaalintiisa qaataa kaalinta uu qaadanaya waxay u baahan tahay marka mar walbaba in la sii tayeeyo inaga haddii aan afkeena hooyo u nimaadno af Soomaaliga ah wuxuu u sii baahan yahay mar walbaba in la sii tayeeyo adeegsigiisa bulshadu way ku hadashaa suuqa markay joogaan way ku wada hadlaan kaas mushkilad weyn kama jirto laakiin marka loo yimaado xafiisyada goobaha waxbarashada warbaahinta markii dhinacyada loo yimaado ayaa waxa laga dareemayaa mudnaantii uu lahaana inaan la siinaynin dadka arrimahaas ka shaqeeyana tababarkii ay u baahnaayeen iyo wacyigelintii ay u baahnaayeen inayna helin iyo diyaarintii ay u baahnaayeen okay doorka akademiga goboleedka afka Soomaaliga aga muxuu yahay marka ku aadan arintaasi akademiga goboleedka af Soomaaligu laba dhinac baan u kala qaadi lahayn hagaas mid waxa weeyaan midan munaasabadan maalinta caalamiga ee afka hooyo ee sanadkan inaga aadisan midina waa guud ahaan ujeedadii loo sameeyayba akademiga goboleedkan af Soomaaliga markii la sameeyay muxuu ahaay June 2013 waxay ka dhalatay fikraduba munaasabadii weyneed ee loo dabaaldegayay 40 guuradii qoritaanka far Soomaalida oo 2012 lagu qabtay Djibouti ayay ka soo baxday fikradan ah in la sameeyo akademiga goboleedka af Soomaaliga si rasmi ah waxa loo sameeyay marka bishii June 2013 waxaana saxeexay madaxweynayaashii iyo maamuladii muxuu ahaay madaxdii geeska Afrika waxa kamid ah madaxweynihii Soomaaliya madaxweynaha Djibouti iyo mas'uuliyiin kale ayaa kamid ahaa ujeedada ugu weyn waxa weeyaan sidii akademiga goboleedku ay kaalin uga qaadan lahayd kobcinta iyo xoojinta adeegsiga iyo tayeynta af Soomaaliga ee kaalimaha kala duwan ee nolosha taas waa mid guud tan akademiga goboleed tan maalinta caalamiga afka hooyo akademiga goboleedku waxay ugu tala gashay in barnaamijyo badan oo kala duwan lagu qabto magaalooyinka kala duwan barnaamijka ugu horeeya wuxuu ka bilaaban doonaa beriyo Arbaca ee magaalada Muqdisho kaasa lagu furfuri doonaa khamiista wuxuu ka dhici doonaa magaalooyin badan ay kamid yihiin Kismaayo Garowe Jigjiga muxuu ahaay Hargeysa iyo meelo kale waxa kale oo ka sii dhici doonaa Sabtidii Axadda si inta badan jaaliyadaha kala duwan ee Soomaalida ee qurbaha ku nool ee kala jooga Ingiriiska Mareykanka Finland Norway Canada iyo meelo kale way aad iyo ma santahay Mustafa Cabdullaahi Fayrus oo kamid ah xil rayaasha akademiga goboleedka afka Soomaaliga ee aga waa tahay aad buu mahadsan yahay sida